Filimkeen wuxuu ku bilaabanayaa annagoo aragna nin beeraley Irish ah oo qabanaya shaqooyinkiisa maalinlaha ah. Dhowr maalmood ka hor wuxuu helay lagab dhawo ah wuxuuna qoday godka si uu u helo kiilooyin badan si uu u iibiyo maadaama ay tahay waxyaabo isku jira oo dhulka ka yimid kaas oo loo isticmaalo farsamada gacanta iyo waxyaabo kale. Wuxuu ku sugan yahay meel u dhow aag diyaarad oo ku taala Ireland. Si kastaba ha ahaatee meesha uga shaqeeya jawigeedu isbedeli doona marka uu wax ka helo qodista. Ninkii ayaa la kulmay naxash duugan wuxuuna ku guuleystay inuu furo qayb ka mid ah gudaha isagoo helay wax aan u muuqan qof bani aadam caadi ah oo leh NGO waaweyn gacmihiisuna ay xiran yihiin. Beeraleydu waa la yaabay daafurkan. Habeenkii ayaa soo dhawaaday sidaas darteed wuxuu aaday cagaftiisii si uu u soo qaato toosh. Si lama filaan ah dhulkii ayaa dhaqdhaqaaqay. Naxashka ayaa bilaabay inuu soo baxo daqiiqada kadib markii uu ku soo laabtay odaygii wuxuu arkay in ciiddu ay qasan tahay oo wixii hoosta ku aasnaa ay ka baxeen. Odaygii ayaa weeraray ilaa si lama filaan ah ay wax kaga yaabsadeen. Bahalka soo baxaya dhulka ayaa weeraray oo ku jiiday god biyo ku jiray. Ninkii wuxuu ku guuleystay inuu ka baxsado isagoo daalan laakiin waxaan aragnaa inuu dhaawacmay oo qoorta laga qaniinay. Dhanka kale waxaa aragnaa lamaanaha Sarah iyo Mark waxay safar ku marayaan miyiga iyagoo doonaya inay ku raaxaystaan maalintaas oo ay u badan tahay inay sameeyaan soo jeedin guur. Labadoodu waxay sii wadaan safarkooda iyagoo maraya dhul qurux badan, beero cagaaran, keymo yaryar iyo jiritaan ilbaxnimo. Waxay raacayaan GPS-ka laakiin si lama filaan ah waxay ku waayeen signalka in muddo ah ilaa qalabka uu sheegay inay mareen waddo qaldan. Sarah waxay isku dayaysaa inay u digto lamaanaheeda laakiin Mark wuxuu ku adkaystay inuu ogyahay meesha uu u socdo oo uu yaqaano waddada. Horay ayay usii socdeen waxay la kulmeen waddo kala qaybsanta. Markna wuxuu ku leexday midigta. Waddadii waxay noqotay mid burbursan hadda waa waddo qoyan oo dhiiqa ah. Mark wuxuu bilaabay inuu shaki ka galo hubintigiisa. Dhawaan gaariga wuxuu dhex maray meel dhiiqa ah wuxuuna dhib kala kulmay inuu dhex maro. Mark wuxuu isku dayayaa inuu xoog kaga baxo dhiiqada laakiin uu ku guul dareystay. Si uu gaariga uga saaro wuxuu u baahan yahay inuu gaariga ka degto oo uu Sarah weydiisto inay qabato steerinka. Mark wuxuu riixayaa gaariga laakiin si dhaqso ah ayuu u ogaaday inuusan ku guuleysan doonin. Dhammaantood waxay isku dayeen inay taleefanadooda ka helaan shabakad si ay caawinaad u soo wacdaan laakiin nasiib darro aaggu wuxuu ahaa mid aad uga fog magaalada. Habeenkii ayaa la gaaray isagoo doonaya inuu xaaladda hagaajiyo. Mark wuxuu u sheegay inuu isku dayi doono inuu helo guri oo caawimaad weydiisto wuxuuna Sarah u sheegay inay gaariga ku sii jirto. Wuxuu u dhaqaaqay dhanka keenta isagoo aaminsan inuu dhawaan guri heli doono. Mark wuxuu sii socday xoogaa wax kaliya oo heleen waxay ahayd meel bannaan oo cidla ah oo aanan lahayn raad bani aadam. Nasiib wanaag isagoo dhinac kale eegaya wuxuu arkay nalal ka imaanaya guri u jira meel 500 oo mitir. Dhanka kale Sarah waxay ku sugaysaa gaariga dhexdiisa lamaanaheeda. Markii si lama filaan ah wax u mareen gadaasha gaariga ma aysan dareemin tan. Ilbiriqsiyo kadib ayaa soo baxday si ay si yar uga soo qaadato sanduuqa. Waxay dibadda ku sugaysaa lamaanaheeda si uu u soo laabto. Mark wuxuu yimid guriga wuxuuna arkay in nalalka la damiyay. Wuxuu baaray hareeraha guriga si uu u arko inuu heli karo qof. Wuxuu ka galay derbiga kadib si lama filaan ah nalalka ayaa shidmay. Isagoo aaminsan in dadka degan guriga ay joogaan ayuu albaabka gargaraacay laakiin cidna ma aysan jawaabin. Mark wuxuu ku wareegay gadaasha guriga haddana nalku wuu shidmay sidii qof inuu shiday. Mark ayaa markaa naxay markii uu arkay albaabkii oo furan. Wuxuu galay isagoo caawimaad dalbanaya laakiin cidna kama uusan helin gudaha. Isagoo cabsanaya markuu galay guriga cabsida leh si taxaddar leh ayuu u hubiyay qolalka. Markii uu ku soo laabtay albaabka dambe wuxuu la kulmay nin taagan oo sii jeeda. Mark ayaa u dhaqaaqay asigoo u sheegaya inuu u baahan yahay caawimaad maadaama uu gaarigiisa dhiiqa kaga dhex jiro. Si lama filaan ah ninka wuu daciifaya wuxuuna u muuqanayaa inuu xanuunsan yahay. Waqti xaadirkan waxaa la ogaaday inuu yahay odaygii bilaawii ku guuleystay inuu ka baxsado bahalka. Mark wuxuu isku dayayaa inuu ka caawiyo beeraleyda nabaradii qoorta. Markii uu gaariga ku soo laabtay Sarah waxay si walaac leh u sugaysaa soo laabashada lamaanaheeda laakiin daqiiqada kadib waxay dareentay jawi cabsi ah oo hareeraheeda. Waxay go'aansatay inay shido nalalka hore iyadoo taagan iftiinka hortiisa. Waxay la yaabtay Mark oo soo laabtay oo u sheegay inuu guri ka helay 1 kiiloomitir. Mark wuxuu ka hadlayaa odaygii wuxuuna sheegayaa inay u baahan yihiin inay u laabtaan si ay u caawiyaan. Labadoodu si dhaqsi ayay guriga u soo gaareen. Markaa nalalka gudaha ayaa dansan taas oo ka yaabisay Mark laakiin wuxuu la galayaa Sarah. Markii ay guriga soo galeen Mark wuxuu isku dayayaa inuu shido nalalka laakiin wuxuu ogaaday in nalalka ay maqan yihiin. Labadoodu waxay raadiyeen odaygii laakiin waxay arkeen gurigii oo gebi ahaanba la jabsaday. Sarah iyadoo la yaabantan waxay gadaasheeda ka maqashay sanqar. Markay soo jeesatana cidna halkaas ma joogin. Si lama filaan ah odaygii ayaa soo muuqday isagoo ag maraya oo jaranjarada ku ordaya. Lamaanuhuna way raaceen xitaa iyadoo Sarah ay ka baryayso lamaanaheeda inuusan tagin. Mark wuxuu ku adkaystay in odaygii uu u baahan yahay caawimaad maadaama uu ka dhiig baxayo qoorta. Waxay u dhaqaaqeen qolka sare laakiin ma aysan ka helin halkaas. Markii Mark uu shiday laambadda wuxuu arkay odaygii oo taagan gadaasha albaabka Sarah laakiin si dhaqsi ah ayuu u baaba'ay. Waxay odaygii ka raadiyeen qolka kale. Markii Mark uu foorarsaday si uu u hubiyo sariirta hoosteeda ninkii ayaa ka soo booday gudaha armaajada oo weeraray. Odaygii wuxuu u muuqday mid wareersan oo u guuxaya sida bahal. Indhihiisuna ay madoobaadeen. Kadib wuu istaagay markii uu la kulmay iftiinka Sarah maadaama uusan jeclayn nalka daaqadda ayuu ka booday. Weerarka kadib labadoodu waxay u baxeen si ay u hubiyaan xaaladda odayga laakiin markii ay baxeen waxay ogaadeen in ninku hal mar la waayay. Iyagoo ka baqaya xaaladda waxay go'aansadeen inay ku laabtaan gaariga. Si kastaba ha ahaatee waayo aragnimadooda hore aawageed
Mark wuu wareeray oo wuxuu qaaday waddo qaldan. Lamaanahan ayaa wada doodaya sababtoo ah Mark ma yaqaan waddadii ay dib ugu laaban lahaayeen. Haddana waxay joogaan meeshii weerarkii ugu horreysay ee uu bahalka ku weeraray odayga. Intii ay doodayeen, bahalka biyaha hoostiisa ka yimid ayaa Mark ku jiiday godka, taasoo Sarah ka dhigtay mid argagaxsan. Nasiib wanaag, Mark wuxuu si dhaqsi ah u awooday inuu dib uga soo baxo oo uu la cararo Sarah, iyagoo adeegsanaya isbeddelka muuqaalka iyo dhirta dhaadheer. Lamaanuhu waxay ka dhuunteen bahalkii ugaarsanayay, iyagoo la helin bahalku wuu iska dhaqaaqay, taasoo u ogolaatay labadooda inay ku laabtaan guriga. Markii ay gaareen guriga, bahalkii saqafka saarnaa ayaa burburiyey qalabka nalalka. Muraayadii jabtayna waxay dhaawacday garabka Sarah. Labadoodu si degdeg ah ayay u galeen guriga oo albaabkii ayay xirteen, laakiin Mark wuxuu lumiyey tooshka. Bahalkii ayaa albaabka furay ka hor inta uusan Mark baxsan. Wuxuu isku tuuray derbiga. Sarah waxay qabatay tooshka taleefanka gacanta, waxayna u isticmaashay sida hub si ay u cabsiiso bahalka. Kadibna waxay u dhaqaaqday dabaqa sare si ay u soo qaadato laambadda. Markii ay ka gudubtay jaranjarada, si lama filaan ayaa loo weeraray oo waxay ku dhawaatay in hoos loo tuuro. Nasiib wanaag way baxsatay iyadoo ku kalsoon nalka. Sarah waxay ku qaylisay Mark inuu isticmaalo nalka taleefanka gacanta, laakiin ka hor inta uusan kicin, bahalku mar kale ayuu weeraray. Sarah ayaa hoos u soo degatay si ay u caabiso, waxayna isticmaashay nalka si ay uga hortagto bahalka. Mark wuu dhaawacmay laakiin waa la badbaadiyey, waxayna u qaaday hoyga musqusha. Argagax ayaa ku dhacay, xanuun daran ayaana qabsaday Mark, isagoo nabaradii ay ka dhigayaan mid taahaya. Sarah waxay duubtay dhaawacyadii soo gaaray, waxayna bilowday inay niyadda u dhisto, iyadoo ka codsatay inuu xanuunka u adkaysto oo u aamuso inta bahalka uu ka dhaqaaqayo. Markii xigta, Sarah waxay dhaqday wejigeeda oo daaqadda ayay ka fiirinaysaa, waxayna aragtay bahalkii oo guriga ku wareegaya, iyadoo ka baqaysa khatar soo socota. Waxay ka caawisay Mark inuu istaago oo uu aado qolka sare, halkaas oo ammaan ah, halkaas oo ay laambadu u haystaan hub ahaan. Laakiin waxay ogaadeen in bahalku uu guriga kor saaran yahay. La waqtigan waxay garteen inaysan jirin meel ammaan ah. Lamaanuhu waxay bilaabeen inay uriyaan wax la yaab leh. Waxay ogaadeen inuu yahay qiiq ka imaanaya dabaqa hoose. Iyada oo argagaxsan, Sarah ayaa hoos u degtay si ay u soo hubiso, waxayna aragtay qiiq oo kaliya oo aanan lahayn wax dab ah. Waa wax si ula kac ah loogu talagalay in lagu cabsi geliyo si ay guriga uga baxaan. Sarah waxay dejisay qorshe. Waxay qabatay nalka taleefanka gacanta, waxay sanka ku xiratay maro, kadibna waxay u dhaqaaqday jikada si ay u joojiso qiiqa. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan ku guuleysan oo si cad ah ma aysan arkin halka uu qiiqa ka bilaabmay. Ugu dambeyntii way isdhiibtay, dibadda ayay uga baxday. Sarah dhulka ayay ku dhacday iyadoo si adag u neefsanaysa ka hor inta aysan soo laaban si ay u hesho Mark. Si kastaba ha ahaatee, ma maqlayso Mark, iyada oo aanan ogeyn in bahalku uu aad ugu dhow yahay, isagoo urinaya. Iyada oo ka naxday xaaladda waqtigan, way carartay oo way dhuumatay. Bahalka ayaa markaa bilaabay inuu raadiyo, laakiin Sarah si degdeg ah ayay u weerartay, waxayna ka dhaawacday cagtiisa, iyadoo mar kale ku gambatay musqusha. Waxay halkaas joogtay dhowr ilbiriqsi ilaa bahalku uu qolka ka soo galo. Sarah waxay ku dhuumatay armaajada, halkaas oo caaro yaryar ay kala kulantay. Nasiib wanaag, cayayaanku ma ahayn mid khatar ah. Daqiiqado kadib, bahalkii wuu ka baxay qolka. Sarahna waxay ka baxday musqusha, waxayna u dhaqaaqday dabaqa sare ka hor inta uusan bahalku gaarin. Bahalku ma raacin, iyadoo og inuu iftiinka dhaawici kara. Markii uu Mark miyir daboolmay, Sarah ayaa toosisay oo u sheegtay inay u baahan yihiin inay helaan waddo ay kaga baxaan guriga. Mark oo ka warqaba daciifnimada bahalka, wuxuu u sheegay inay kaliya sugaan waa beriga oo ay iftiinka qoraxda u isticmaalaan hubkooda ugu dambeeya ee ka dhanka ah bahalka. Si kastaba ha ahaatee, markii ay aragtay bahalkii oo bannaanka guriga jooga, Sarah way ka biyo diiday, iyadoo ka baqaysa in mar kale uu soo weeraro. Kadib waxay soo bandhigtay qorshe, waxayna weydiisatay isaga caawimaad, laakiin laambadda ayaa dintay. Bahalkiina wuxuu bilaabay inuu weeraro lamaanaha. Nasiib wanaag, Sarah si dhaqso ah ayay dib u shiday laambadda, indhaha ayay kaga qabatay bahalka, taasoo gubaysa. Kadib wuu ka laabtay. Sarah iyadoo fiirinaysa beerta deriska la ah, waxay aragtay cagaf u dhow, waxayna u sheegtay lamaanaheeda hab ay ku baxsan karto. Mark, inkasta uu xanuun badan qabay, wuxuu Sarah ka caawiyey dibadda, iyadoo laambadda ay u haysato hub ahaan. Sarah si taxadar leh ayay ugu soo dhawaatay gaariga, laakiin markii ay ka bowday derbiga ilbiriqsiyo kadib, Sarah waxay ogaatay in bahalku uu dhowr tilaabo ka dambeeyo. Iyadoo ka baqaysa weerarka, way oraday oo si dhaqsi ah ayay u gashay cagafta, laakiin nasiib darro, furayaashu gudaha kuma jiraan. Si lama filaan ah, ninkii bahalka isku bedelay ayaa yimid oo weeraray, wuuna dhaawacay. Sarah ayaa dib ula dagaalantay oo qabsatay furayaashii, wayna dhaawacday. Ka hor inta aysan dhulka dhigin, waxay shiday cagaftii beeraha, waxayna u isticmaashay tooshka xooggan odayga. Iftiinku wuxuu sababaa in bahalku uu barafoobo oo uu isku bedelo taalo dhagax ah, iyada oo aan waqti lumin. Sarah waxay cagafta marisay oo burburisay jirkii bahalka. Kadib guusheedii, waxay dib ugu laabatay guriga si ay u hesho Mark. Way ka caawisay inuu kor u kaco oo uu hoos u dego. Si lama filaan ah, markii uu arkay nalka, Sarah ayuu dhinac u riixay, wuxuu u orday dhinaca gaariga, wuxuuna burburiyey nalalka hore. Iyada oo argagaxsan, Sarah waxay dib ugu laabatay dabaqa sare. Markii Mark uu bilaabay inuu u soo dhawaado Sarah asigoo isbedelay, Sarah waxay isticmaalaysaa iftiinka leerka si ay iskaga difaacdo lamaanaheeda, kaasoo ugu dambeyntii kasoo dhacay jaranjarada. Iyada oo argagaxsan, Sarah waxay ka walacsan tahay waxay sameynayso, waxayna ka walwalsan tahay xaaladda lamaanaheeda. Kadib waxay gashay qolka jiifka, waxayna raadinaysaa wax faa'iido leh. Nasiib wanaag, waxay heshay dhowr xabo
laambo oo shumac ah si dhaqsi ah ayay u shiday si ay u iftiimiso hareeraheeda iyada oo aanan rabin inay rumaysato in Mark uu isbedelay. Sarah ayaa u yeertay, si kastaba ha ahaatee ma jirin wax jawaab ah oo ka timid. Sarah si tartiib ayay ugu soo degtay jaranjarada. Markii ay baartay jirka Mark, waxay ogaatay in lamaanaheeda uu doonayay inuu soo bandhigo guur. Waxay qaadatay faraantiga waxayna ku dhaqaaqday inay ogaato waxa loo qorsheeyay. Sarah waxay Mark u jiiday dibadda, laakiin waxay la kulantay bahalkii kale iyadoo ku qasbanaatay inay mar kale guriga isku xirto. Mark waxay gelisay musqusha iyadoo xirxirtay si uu u soo tooso isagoo careysan oo isbedelaya iyadoo ka fikiraysa inay haysato faraantiga. Mark ayaa ku soo toosay isbedel, wuxuuna isku dayayaa inuu weeraro. Sarah ayaa xanibtay iyadoo isticmaalaysa shumaca. Isagoo xanaaqsan, Mark ayaa ku dul dhacay meesha weji dhaqa waxaana ka daatay ilkihiisa. Iyada oo cabsanaysa, Sarah waxay qaadatay qalab buufis ah waxayna u isticmaashay inuusan lamaanaheeda uga soo dhowaan inta ay ka baxayso qolka. Kadibna kor ayay kaga soo xirtay iyada oo aanan haysan nal ay isku ilaaliso. Sarah waxay ag tagtay leerka TV-ga, waxay shiday warqad dab ah waxayna u isticmaashay gaashaan si ay uga baxdo guriga. Sarah oo argagaxsan waxay tagtay qolka waxayna haysataa bukis taraq ah oo kaliya. Si kastaba ha ahaatee, taasi ma sii jiri doonto waqti dheer. Si lama filaan ah, gacanteeda waxay ku dhagtay alwaaxdii dhexdooda, farteediina waa la qaniinay. Waxay shiday taraqa waxayna si ku meel gaar ah uga xorowday ninkeedii isbedelay. Laakiin ninkii oo hadda bahal isku bedelay ayaa galay qolka, wuxuuna sugayaa si uu u weeraro Sarah. Nasiib wanaag, waxay saqafka ka heshay nal waxayna si dhaqsi ay u raadinaysaa badhan si ay u shido nalka, xitaa iyadoo og inay tan burburin doonto ninkeeda. Iyadoo aanan wax kala dooran ayay nalkii shiday. Markay sidaas samaysay, Mark wuxuu isku bedelay taalo iyada oo ooynaysa. Sarah waxay daawanaysaa lamaanaheedii oo dhintay. Kadib si geesinimo leh waxay ugu soo dhawaatay taalada oo gabi ahaanba way burburisay. Waqti xaadirkan waxay aragtay dhaawaca gacanteeda ku yaala, waxayna ogaatay in marka uu dhaawaco noole cudurkan qaba, dhibanuhuna oo sidoo kale noqon doono bahal. Iyada oo aaminsan inay isku bedeli karto bahal, Sarah waxay qaadatay qalab waxayna ku jartay farteeda. Si geesinimo leh ayay sidaas u samaysay, waxayna joojisay qaylada xanuunkeeda si ay uga fogaato soo jiidashada bahalka kale. Daqiiqado kadib waxay maqashay dhawaaqyo dibadda ah, waxayna ogaatay inuu yahay bahalka. Kadib si caqli ah ayay u qorshaysatay iyada oo aragtay nalka saqafka ku xiran iyo farteeda ay jartay ee baaquliga dhiigga ku jirta. Waxay abuurtay raad dhiig ah, kadibna waxay samaysay buuq waxayna damisay nalka. Daqiiqada mugdiga ayaa soo jiidatay bahalka. Markii uu bahalka yimid isagoo isku dayaya inuu qabto iyada, Sarah waxay ku guuleysatay inay ka baxsato meesha ka hor inta aysan u gacan galin. Markii ay guriga ku soo laabatay, Sarah waxay haysataa 3 qori oo taraq oo kaliya, waxayna 2 ka mid ah u isticmaashay inay u dhaqaaqdo hoolka ku xiga. Laakiin daaqada waxay kala kulantay weerar cabsi leh. Waxay heshay dhalo qamri ah, alwaax iyo maro, waxayna samaysay iftiin dab ah. Markii ay shiday, waxay ku dhiiratay geesinimo ay ku wajahdo bahalka. Asigoo ka baqaya iftiinka dabka, bahalkii ayaa dib uga laabtay oo u ogolaaday Sarah inay baxdo ka hor inta aysan ka bixin guriga. Sarah waxay heshay laambad gaas ah waxayna ku bedeshay dabkii iyadoo og in laambadu ay sii jiri doonin muddo dheer. Ayay ka guurtay aaga waxayna heshay alwaax badan oo meel daadsan. Waxay go'aansatay inay dhex marto qoryaha jajaban, laakiin markay gaartay dhamaadka way simbirraxatay. Laambaduna way ka dhacday, lugteediina way ku dhagtay. Waqti xaadirkan, Sarah waxay ogaatay in bahalku uu ku soo socdo. Kadib way isqaarisay. Bahalkii cabsida lahaa oo leh astaamo u eg bani'aadamka ayaa dul maray, mana uusan helin. Daqiiqado kadib waxay soo qaadatay laambada waxayna raacday god yar. Waa meeshii uu bahalka ka soo baxay. Halkaasna waxaa cagteeda ka dhaawacay qori dhulka yaala, taasoo keentay xanuun daran. Si kastaba ha ahaatee, ma soo dhawaanayo isagoo ka baqaya iftiinka Sarah. Iyadoo u adkeysanaysa xanuunka, waxay gaartay xiradii hore ee beeraleyda. Halkaas waxay ka heshay qasacado shidaal ah waxayna haysataa fikrad, laakiin waa inay wajahdaa bahalka meesha ku jira iyadoo xanuun daran hayo. Sarah waxay ku shubtay shidaalka meel guban karta waxayna sugaysaa in muddo ah. Bahalkii ayaa kasoo muuqday gadaasheeda asigoo aaminsan inuu ugaartiisa uu gacanta ku hayo, laakiin si la yaab leh ayay Sarah ugu dhigtay dabin. Waxay jebisay laambada, dabkuna wuxuu gaaray shidaalka, taasoo keentay in bahalku bilaabo inuu gubto. Asiga oo quus ah, bahalku wuxuu isku tuuray biyaha wuxuuna damiyey dabkii. Daqiiqada kadib waxaan aragnaa Sarah oo isku dayaysa inay ka baxsato meesha, laakiin bahalku wuu ka soo baxay godkii asigoo si xoogan u qeylinayo. Kadib waxaan aragnaa bahalkii uu ku boodaya si uu u weeraro iyada si aan naxariis lahayn. Nasiib wanaag, Sarah si degdeg ah ayay u isticmaashay qori fiiqan oo alwaaxa ah si ay ugu disho bahalka, waxayna ka gelisay xabadka, taasoo soo abjaraysa noloshii bahalka. Dagaalyahanadii oo dalan ayaa markiiba dhulka ku dhacaysa iyadoo miyir beeshay. Falaaraha ugu horeeya ee qoraxda ayaa bilaabmay inay soo muuqdaan, waaguna wuu baryay. Sarah way soo kacday, waxay u socotaa si tartiib ah iyadoo ku faraxsan inay nooshahay oo ay ka badbaaday weeraradii habeenkii tagay. Laakiin way dhacday iyadoo weli daciif ah. Kadib waxay ogaatay inay ilowday dhaawicii qoorteeda ku yaalay, kaas oo sababi kara inay noqoto bahal. Markii ay qoraxdu ku dhacday wejigeeda, nasiib wanaag, Sarah way ka badbaadaysaa khatarta ka imaan lahayd dhaawaca qoorta kaga yaala. Filimkeena halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad halkan la soo gaartay, fadlan ku sabir janaalkeena. Mahadsanid.